kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dalkiinba meel walba aad joogtaan subax wanaagsan halkan waa Dhakaweyne Media qodobada aan idiin soo gudbin doono subaxan waxa qayb ka noqonaya Axmed Madoobe oo farmaajo uga digay in dalka uu galiyo dagaal sokeeye mucaaradkii ugu badnaa oo Muqdisho yimid dagaalka Itoobiya ka socday iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa maxaa ka jira in farmaajo uu ballan qaaday garabsiinta saaxiibkiisa Abiy Ahmed filla Soomaaliya oo hal arin mashquul ku ah Puntland oo ay ku sii qulqulayaan kaadiriinta filla Soomaaliya iyo digniin laga soo saaray qodobadaas ayaa daawan doontaan soo dhawaada haddii aad nagu cusub tahay daawada nagu soo bir oo channelka subscribe saar haddii aad naga daawanayso barta Facebook-gana muuqaalkan si share garay qaybta hoose ee commentiga aragtida noogu reeb fadlan like hilmaamin inaad page ka saarto taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 18 bisha 11 sanadkuna waa 2020 soo dhawaada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ka hadlay guddiga doorashooyinka ee muranka badan dhaliyay ee mucaaradka ku riday hurdo la'aanta guddigan oo dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay intooda badan inay yihiin shaqaalaha dawladda iyo saraakiil ciidan waxaana tani ay qasabtay in laga digtoonaado in musharaxiintu ay isku diraan ama ay aqbalaan doorashada la filayay in dhawaan dalka ay ka dhacdo musharaxiinta ayaa intooda badan waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin inay ka qayb galaan doorashada haddii aan wax laga bedelin guddigan doorashooyinka beesha caalamka ayaa qudheeda wali waxa ay bixinaysaa dadaal xoogan oo ay ku doonayso in wax ka bedel lagu sameeyo guddigan geesta kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka hadlaya guddiga doorashooyinka ee filla Soomaaliya soo magacawday ayaa waxa uu sheegay in uu ka cabsi qabo in dalku uu galo dagaal sokeeye waxa uu sheegay hogaamiyaha maamulka Jubbaland in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka baaqsan karayo in dalka la galiyo falqado siyaasadeed isaga oo markaasi eegayaan masiirka ummadda Soomaaliyeed hase yeeshee haddii uu damacsan yahay sida uu hadalka u dhigay in dalku uu galo dagaal sokeeye qayb ayuu ka qaadanayaa waxa uu noqonayaa shakhsiga mas'uulka ka ah wax waliba ee dhaca ayuu yiri Axmed Madoobe ayaa carabka ku adkeeyay in isu tanaaso iyo isu ogol iyo sidee wax loo xalli kara oo kaliya dalkan lagu maamuli karo hase yeeshee awood la isku sheegto iyo sidoo kale in la iscaburiyo ay dalka halkan gaarsiisay isaga oo si sarbeeb ah tusaale u soo qaatay hogaankii Maxamed Siyaad Barre oo dalka maamulayay in ka badan 20 sano waxa uuna yiri haddii awood dalkan lagu haysan karo ama lagu maamuli karayo hortiis jire ayaa maamuli waayay waan ogtihiin halka uu ku dambeeyay sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu mucaaradka kula taliyay in ay qaataan go'aan mid ah iyagoo uu turaya wadanka hadalka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu imaanaya iyada oo laga dhur sugaya maamulo uu kamid yahay maamulkiisa Jubbaland in ay soo magacaabaan guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed kuwaas oo ilaa hadda ku harsan Puntland iyo Jubbaland arintan ama warka Axmed Madoobe ayaa waxa uu sii cadeynayaa ama meel fog sii geynaya in uu diyaar u ahayn in dalka ay doorasho ka dhacdo maadaama uuna soo dhisin guddigan geesta kale mucaaradkii ugu badnaa ayaa waxay ku soo qulqulayaan magaalada Muqdisho iyagoo u imaanaya in ay yeeshaan kudlado ay ku midaysan yihiin si ay culays u saaraan filla Soomaaliya dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray xubno siyaasadda Soomaaliya saameyn xoogan ku leh oo ka mid yahay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo galmudug madaxweyne ka soo noqday sidoo kale wasiir soo noqda haatan ah xubnaha ugu cadcad musharaxiinta la doonayo inay u tartamaan xilka madaxweyne ee Soomaaliya sanadka 2021 arrintan waxa ay baqdin badan gelisay filla Soomaaliya iyada oo ka cabsi qabta in musharaxiintan ay u midoobaan isla markaan ay culays xoogan ku saaraan sidoo kale filla Soomaaliya waxa culays xoogan ku haya cabashooyinka isdaba joogga ah ee loo gudbinayo beesha caalamka taas oo sababi karaysa in dawladaha caalamku ay soo farageliyaan beesha caalamka hore ayay ugu baaqday in doorasho la isku ogol yahay wadanka laga qabto waxayna ku taliyeen in guddigii doorashooyinka ee dhawaan la soo dhisay isbedel lagu sameeyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo iminka Muqdisho joogo ayaa waxa uu durba bilaabay in uu sameeyo olole uu ku doonayo in uu kaga hadlo ama uu kaga hortago tallaabooyinka ay qaadayso filla Soomaaliya musharaxiintii ugu badnaa ayaa waxay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaana suuragal ah in maalmaha fooda nagu soo hayay ay soo garaan magaalada Muqdisho
oo ay ka hadlaan waxyaabaha wadanka ka soconaya. xubnaha la filayay in toddobaadkan Muqdisho soo gaaraan waxaa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre oo dhammaantood ah musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya. mucaaradka ayaa waxaa suuragal ah in ay sameeyaan guddiyo kale oo ka madax bannaan kan dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sameysay haddii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbedel sameyn waayo. dagaalka ka socda Itoobiya iyo wararkii ugu dambeeyay haddii aynu eegnana gobolka Tigreega waxaa weli ka soconaya dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada daacadda u ah Abiy Ahmed ee militariga iyo xoogga TPLF oo si adag kaga soo horjeeda. dadkii ugu badnaa ayaa ka barabaxaya deegaanada lagu dagaalamayo iyaga oo ku wajahan xuduudaha ay wadaagaan dalalka Eritrea iyo Suudaan xadkeeda waxaa gaaray dad gaaraya ilaa iyo 25,000 oo qof kuwaasi oo ka soo barabaxay colaad dalka Itoobiya. dadka intooda ugu badan waxa ay la baqanayaan caruurta waxaana jira dadka qaar oo sheegaya in aynan wax cunno iyo gargaar kala helin muddo toddobaad ah. warbaahinta caalamka ayaa si aad waxay u soo warinaysaa dhacdooyin xanuun leh oo laga wariyay dagaalka ka soconaya gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya. dagaal shalay galab ka dhacay magaalo lagu magacaabo Alamata oo ah midii ugu dambeysay la wareegin ciidamada Abiy Ahmed ayaa lagu waramayaa in uu ka dhashay khasaare kala duwan oo leh dhimasho iyo dhaawac. ciidamada militariga ayaa weli duqeymo cirka ka fulinayo. xoogga TPLF-na waxay ku sii adkeysanayaan inay iska difaaci doonaan Abiy Ahmed iyo kaadiriinta uu wato sida ay hadalka u dhigeen. Abiy Ahmed ayaa dhankiisa weli waxa uu sheegayaa inuu ka guul keenayo kooxahaas uu sheegay in Itoobiya ay kala dhantaalayaan. beesha caalamka iyo daneeyayaasha dalka Itoobiya ee ku baaqay in la joojiyo colaadaas ayuu ku qancinayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya inay ka aamusaan waxyaabaha ka soconaya dalkiisa oo ay madax banneeyaan. geesta kale madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay warar ku sheegayaan inuu ballan qaaday saaxiibkiis Abiy Ahmed inuu garab siin doono. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheego in si aad uu kaga shidaal qaato dhigiisa ama ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayay warar ku sheegayaan inuu kula hadlay qadka taleefanka. wada hadalka labada mas'uul ayaa waxaa la sheegay in la isku soo hadal qaaday waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in laga wada xaajoodo ama laga wada hadlo sida Soomaaliya ay qayb uga noqon karto in Abiy Ahmed ay garab siiso. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka codsaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu taageero u muujiyo. hase yeeshee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in haddii uu taageero degdeg u muujiyo Abiy Ahmed oo uu shaaciyo ay ku noqon karayso culays siyaasadeed maadaama iminka uu wajahayo doorashooyin. waxaase labada mas'uul isla garteen in culaysaadka ay xamil waayaan xubnaha militariga iyo sidoo kale dowladda Itoobiya ee madaxweyne Farmaajo uu wax ka galo uu garab ku sii doono. waxaa sidoo kale Abiy Ahmed garabkiisa ah madaxweynaha wadanka Eritrea Asaf Wiki waxaana saddexdan mas'uul ay yihiin saaxiibo si aad isugu dhow waxaana horey u amba qaadeen qorshe ay ugu magac dareen isdhexgalka geeska Afrika. Abiy Ahmed ayaa waxa uu wajihi doonaa culays siyaasadeed oo aad u culus waxaana uu taageero ka raadinayaa wadamo badan oo Afrikaan ah inkastoo wadamada Kenya, Djibouti, Suudaan, Masar iyo sidoo kale Uganda ay hore u sheegeen in ay ku taageereen tallaabada uu qaaday Abiy Ahmed oo si aad kaga soo horjeedaan taas oo ay sheegeen in ay xasiloon darro ka abuuri karayso gobolka oo ay ahayd in laga baaqsado sida ay hadalka u dhigeen. laakiin Abiy Ahmed ayaa warkaasi dheg jalaq u siinin. colaadda dalka Itoobiya ka socoto saameyn intee leeg ayay Soomaaliya ku yeelan kartaa waa su'aalo badan oo la isweydiinayo. dad badan ayaa waxa ay shaki ka muujinayaan ama ka cabsi qabaanba in kumanaan ruux oo Itoobiyaan ay ku soo barakacaan dalka Soomaaliya taas oo culays xoogan ku noqon doonto. inkastoo dadka qaar ay sheegayaan in Tigreegu ay ku soo dhiira karin in Soomaaliya u soo barakacaan maadaama ay og yihiin in hore uga geysteen gabad fali aad u xoogan. dowladda Itoobiya ayaa waxa ay aad u danaynaysaa in xubnaha Tigreega ah ee barakacaya lagu celiyo magaalooyinka ay joogaan si beesha caalamku ayna u arag. filla Soomaaliya waxaa iminka laga dareemayaa mashquul aad u xoogan waxaana ku sii qulqulaya xubno badan oo danaynaya inay ku soo baxaan kuraasta baarlamaanka iyo kuwa kale oo xildoon ah. xubnahan oo u badan shaqaale dowladeed iyo kuwa si aad u taageersan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa filla Soomaaliya buux dhaafinaya iyaga oo weydiisanaya in uu garab siiyo.
hayeeshee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu dejinayaa qorshe ah inuu taa ku hirgeliyo waxaana deegaanada maamulka Puntland kusii qulqulaya kaadiriin fila Soomaaliya laga diray waxaana soo baxaya digniino culus oo ay soo saarayaan xubnaha doonaya xilalka kuraasta baarlamaanka ee maamulka Puntland arrintan waxaa ka hadlay Cabdi Barre Jibriil oo ah xildhibaan hore iminkana doonaya inuu mar kale kursiga ku soo laabto Cabdi Barre Yusuf Jibriil ayaa waxa uu sidoo kale ka digay in Puntland iminka ay qaabisho xubno laga soo diray madaxtooyada Soomaaliya kuwa uu sheegay in Garowe ay si saa'id u buux dhaafiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada ayaa waxay aad u danaynaysaa inay soo saarto xubno u daacada oo fila Soomaaliya ay xildhibaano ka dhigato ikhyaari barnaamijkii waa inaga inta waad ka daawanayseen bogagga aan ku leenahay internetka ee Dhakaweyne Media oo YouTube ah iyo Dhakaweyne Media oo Facebook ah waad ku mahadsantahay daawashada haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir muuqaalkan sii share garay fadlan like ha hilmaamin nabadgelyo